محمد عمر جيدي oo kamid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Jubbaland oo qaybaha bulshada maanta la kulmay ayaa soo bandhigay barnaamijkiisa siyaasadeed hadii uu noqdo madaxweynaha Jubbaland si gaar ah waxa uu ugu dheeraaday muhiimadda ay leedahay dib u xoreynta deegaanada ay al-shabaab ka maamulaan deegaanada Jubbaland tashiyo badan oo sameeyeen ay ugu dhiirigelisay dadka bulshada Jubbaland markaan arkay xaaladaha lagu sugan yahay baahidooda iyo la tashiyo badan oo sameeyay in aan ka mid noqdo dadka u sharaxan oo aan isleeyahay haddii aad ku guulaysato waxaad tahay xog arrinta kale aan rabo waxa weeye waxaan rabaa inaan arrimaha aan damacsanahay haddii ilaahay guuleeyo aan bulshada wax uga taabto arrintaas oo ah haddaan gobolkan wuxuu ka hadlay deegaanada Jubbaland inta garanaysa mamay ku hadlay cidii garanaysa cidaan garanaynin hadda waxaan rabaa inaan dareensiyo wuxuu ka bilaabay hejin xadagteeda ilaa iyo tuulo tiriyay ceelboon yurkudi qoondod luuq uu soo wareejiyay dolo ilaa dadkan loo keenay diif iyo la soo marsiyo dowladda ay gelin waxaan rajaynaa inaan la imaan doono siyaasad ka turjumaysa dhammaan dadka ku nool Jubbaland geesi siyaasad ka turjumaysa dadkaas oo dhan siyaasad xaqiiqada ka turjumayso siyaasad haddii ilaahay idmaayo dadka Jubbaland wada matasho Jubbaland la wada leeyahay Jubbaland la wada difaacanaya dadkeeda ku wada ganacsiin loo milaysan yahay inaan la imaan doono ayaan rajaynaa adinkana waxaan idinkaga codsanaa Jubbaland haddii aan ku guulaysto madaxtinimada Jubbaland waxaan u howlgeli doonaa in la helo ciidamo xooggan oo qaranka guud ahaan uu leeyahay maadaama aan qayb ka nahay dowladda federaalka inaan ka shaqeyno dowlad sharci u hoggaansan iyo inaan ka shaqeyno ciidan guud oo dalka ka dhaxeeya iyo mid dowlad goboleedka si gaar ahaan amnigeeda sugan qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay shirka ayaa iyaguna dhankooda sheegay inay soo dhaweynayaan musharaxa loogana baahan yahay inuu la yimaado wax qabad muuqda maxamed cumar geedi dhammaan waan salaamayaa bacda salaam walaalkay marka hore waxaan u hambaleynayaa madaxweyne musharax madaxweyne maxamed cumar geedi oo aqbalay dastuurkii Jubbaland inuu ku tartamo guddiga doorashadii habraacoodii soo qaatay bise waxaa lagu bilaabay baraka male bise waxaa lagu bilaabay baraka male maxamed maankay maskaxdaydu daawadeed maxamed maankay maskaxdaydu daawadeed محمد عمر جيدي ومشرح مدحوينه muxuu ahaay waxqabadkiisa inuu ku soo bandhigo uu rabo dadkana inuu u sheego uu rabo arinta anigu fikirka saasaan u qaatay waan soo dhaweyneynaa Bashiir Maxamed Daahir Goobjoog Kismaayo.